gudoomiyaha gobolka Saraar Mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa maanta si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay isuduwaha cusub ee wasaaradda deegaanka gobolka Saraar loo soo magacaabay Mudane Mubaarak Ismaaciil Cismaan iyo isuduwihii hore ee wasaaradda deegaanka Farxaan Salebaan Gaas. munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka Saraar ayaa waxa goobjoog ka ahaa isuduwayaal xildhibaano cuqaal iyo xubno kale oo door ah waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay isuduwihii hore wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar Farxaan Salebaan Gaas oo ka xog warramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay iyadoo sidoo kale isuduwaha cusub ee wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar Mubaarak Ismaaciil Cismaan halkaasi ka sheegay waxyaabaha uu qorshaysan inuu ka qabto horumarinta wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar. xilkii aan u hayay wasaaradda deegaanka oo ku wareejinayo Mubaarak oo aan kula shaqeynayo oo aan garab taaganahay oo mar halkii shaqada aan ka sii hayay ka sii qabanayo oo aan ka tagin wasaaraddii aan ka mid ahay wasaaraddii qorshihii iyo halka ay ka leecaysano mar walba kala talinayo uu sheegayo garabkiisana taagan baan lato mar walba ahay oo halkii uu Mubaarak ku jiro oo meel aan ku jiro aan kama tagin waan kula shaqeynayaa xilkiina waan kugu wareejinaya Mubaarakna waxaan u sheegayaa gobolku waa hawlo badan yahay waana shaqadiisu waa fara badan tahay waxa weeyaan meel badan baa laga soo qoreynaya meelaha laga soo qoreynayna waxaan hay ninka hor taagan ee meesha ka shaqeynaya ee wasaaradii ku soo igmatay alla ii soo igmatay horta shaqadu waxay ku wacan tahay oo ay ku wanaagsan tahay in marba cid lagu tijaabiyo waana sababta keentay in maanta aniga hawshan la soo igmado oo wasaaradda deegaanku ii soo igmato waxaan uga marxaati kacaya oo aan uga marakacaya Farxaan inuu shaqo adag oo wanaagsan ka qabtay wasaaradda iyo gobolkaba kamaan maqnayn oo nin dibadda kaga imanaya meehi nin shaqaalaha wasaaradda kamid ah baan ahaa nin xarunta joogay baan ahaa inaynu wada shaqo wanaagsan yeelano gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka isuduwayaasha warajeynaya inaynu si wacan wada shaqeyno runtiina aynu hawl badan ka qaban doono deegaanka waynu ognahay oo marka deegaanadan barigaba la yiraahdo nolosheen waxay ku tiirsantahay xoolaha nool xoolo dhaqateena xoolaha noolna hadii aanay baad helin ma noolaanayaan shaqaalaha waan ka shaqaysiinayna waynu culays badan baynu saarayna nin waliba deegaan buu ku qoran yahay deegaankiisa mas'uuliyad ka saarayna. barasaabka gobolka Saraar Mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ku xigeenkiisa Nuur Qaasin Qodax xogayaha maamulka gobolka Saraar Cabdirasaaq Maxamed Cali Daad iyo xildhibaan Cismaan Cabdi Qodax oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa iyaguna soo dhaweeyay isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar iyagoo sidoo kalena sii sagootiyay isuduwihii hore ee wasaaradda deegaanka Farxaan Salebaan Gaas. runtii farxad weyn baan noo tahay inaan ka qayb galo xafladan xil wareejinta ee lagu kala wareejinayo labada isuduwihii hore Farxaan Salebaan Gaas iyo isuduwaha cusub Mubaarak Ismaaciil Cismaan. runtii wasaaraddan waa wasaaradda hamiyad weyn u leh qaranka marka la eego hadday tahay duurjoog iyo hadday tahay deegaanka kaleba marka waa wasaaradda ugu dhiban marka la eego ama isuduwaha halkan loo soo magacaabo waa isuduwaha ugu dhiban ama ugu hawsha badan isuduwayaasha. runtii isuduwihii hore xilligii uu hawshan uu hayay oo marxalado fara badan la soo maray oo magaranaysaay uu door fiican ka qaatay isagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna waxaan soo gacmo furan ku soo dhaweynaynaa isuduwaha cusub waxaanuna ilaahay uga baryaynaa inuu xilka ku asturo. aad ugu mahadnaqayaa isuduwihii hore ee wasaaradda deegaanka Farxaan Salebaan Gaas oo intii uu xilka hayay uu ahaa isuduwihii ugu waxqabadka badnaa xagga deegaanka waxa kale oo aan iminkana si toos ah ugu soo dhaweynaa gacmo furan aan iyo niyad sami baan ku soo dhaweynaa waxa weeye waa isuduwaha wasaaradda deegaanka Mubaarak walana waxaan ku qaadaynaa haddaan nahay isuduwayaasha gobolka iyo dhammaan madaxdeena gobolka waa inaan si toos kula shaqeyno aan ku rajeeyno isuduwaha cusub ee wasaaradda deegaanka loo soo magacaabay inaan soo dhaweeyno. sugnaatay maanta halkan waxaanu joognaa waajibka qaranka oo ah sunnaha dawladnimo oo ah in xilka marba qof lagu eego maanta halkan waa xilka loo kala wareejinayo Farxaan Salebaan Gaas iyo maaha hawl dhayala maaha hawl dhibicsan. runtii halkan maanta waxaanu ku qabanaynaa waa xafladii xil wareejinta ahayd runtii walaalkeen Farxaanna aynu kula u sii ducaynayno Mubaarak oo runtii isaguna xilka la wareegayna aynu la dardaarmayno horta xafladu intaasay kulle daaran tahay sunnaha dawladnimo leh in dadku isbedelaan isuduwii hore shaqo badan buu qabtay hawl badan buu qabtay
wasaaradda deegaanku waa wasaaradaha ugu hawsha badan leh bay ka mid tahay waxay mas-uul ka tahay deegaankii oo dhan haddii ay noqon lahayd duurjoogtii haddii ay noqon lahayd deegaankii laftigiisiiba deegaanka gaar ahaan Mubaarigna waa soo dhaweynaya waxaana leeyahay qalbi furan iyo laab furma kugu soo dhaweynaya ugu dambeyntiina barasaabka gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Xaaji Axmed ayaa si rasmi ah waxa uu xilka iyo dokumentiyada kala duwan ee wasaaradda ugu kala wareejiyay labada isuduwe ee midna la soo magacaabay midna xilka laga bedelay jaamac boodacade warbaahinta qaranka Somaliland Xaynaba